halkani waa garoonka Minishiibiya ee degmada Warta Nabadda waxaana tartan lagu qabtay ciyaartooyda ay da'dooda ka yartahay 15 jir kuwaas oo kooxo ka duwan ka kala socday 10 kooxood ayaa lagu bilaabay tartankani waxaana soo qaban qaabiyay kooxda kubadda cagta ee Minishiibiya gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ayaa ka soo qayb galay ciyaartani tartanka ee kama dambaysta oo ay isugu yimaadeen kooxo lagu kala magacaabo Muqdisho B iyo Muqdisho A oo halkan ku soo bandhigay ciyaar xiiso badneed oo ku dhisneed weerar iyo weerar celisa inkastoo ay guusha qaadatay kooxda ku ciyaaraysay magaca Muqdisho B tartanka markii uu soo gabagaboobay ayaa ciyaartooyda labada kooxood ka socday waxa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayay ciyaarta markay soo ilaatay ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha kooxda ku ciyaarta Muqdisho ee kamid ah kooxaha Sare-eeda ama kooxaha kaalmaha hore kaga jira horyaalka Soomaaliya waxaan loogu magac daray Muqdisho Talent Cup waxaan ugu talagalnay markastaba inaan maaragtay ku dhiirigelin dhalinyarada tartankan wuxuu noo socday intii u dhaxaysay bishan bilowgeeda ilaa hadda waxaan ka qayb galay 10 kooxood waxaan maaragtay ugu talagalnay markastaba inaan joogtayno si ay ciyaartooyda da'da yarta ah ay fursad u helaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Basma Camar Jaketi waxa ay tilmaamtay in maamul gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dhiirigelinta isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed isboortigu waa isdhexgalka bulshada dhalinyaradan waxa laga yaabaa degmooyinka fooraha xataa dhalinyaro ka yimidayna ku jiro ee isku baranayaan isdhexgal bulsho ayaa meeshaas ka bilaabanayso annaga waxaanu sumcad iyo sharaf noo ah inaan isboortiga tayeyno oo ah isboortiga waa horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Idriiso ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamul gobolka Banaadir uu rajayn ka qabo horumarinta isboortiska magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya ay horumar ballaaran ka gaari karto dhinaca isboortiska haddii la tayeeyo arrimaha la xiriira isboortiska ama ciyaaraha kala duwan ee dalka laga ciyaara ciyaartu iskama timaado haddii qofka rabitaan jirin haddii qofka u dhabar adeegin caalamiinta badan u sameeynin isla markaana juhdi ku bixinin waa adkaanay inaan helno dad Ronaldo kala marka waa aaminsanahay Soomaali badan inay noqon doonaan ciyaartooyda adduunka koobka adduunkana qaadan doonaan haddii aan sidaan aan ku wadno lagu wadana in mustaqbal wanaagsan isboortigan uu yeelanayo shaki igama jiro Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho